daawade halkan waa M252 kusoo dhawo muuqaal kale dhowrkii sanaba waxaa laga yaabaa inaad telefoonkaaga iska bedesho dhibaataha ku timaado ama yaysan ku imaanin tusaale ahaan telefoonkaaga waa uu kaa jabi karaa waa uu kaa lumi karaa waa lagaa xadi karaa ama inta uu duugoobo ayaad garan kartaa inaad iska bedesho sidaa darteed waxaa rabaa muuqaalkan inaan kugu sheego qodobo ay tahay inaad tixgeliso marka aad telefoon cusub iibsanayso weliba xilligan la joogo 2022 iyo wixii ka dambeeya intaan qodobada gaarin oo aanan hordhac ka bixin waxaa rabaa inaan kuu sheego in shirkadda Halal Commodities ay sameynayso qiimo dhimis weyn haddii aad iibsato telefoonada Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Fold 2 ama Fold 3 saddexda mid kamid ah haddii aad iibsato waxaad heli doontaa mid kamid ah saacadaha ay samayso shirkadda Samsung ee kuwa qaaliga ah oo free ah haddii saddexda telefoon mid kamid ah aad iibsato saacad Samsung ah oo free ah ama lacag la'aan ah ayaad heli doontaa ka faa'iideyso isolaabad wanaagsan haddii aad doonayso inaad telefoon cusub iibsato dabcan kugulama talin lahayn inaad inta suuqa iska tagto wax un iska soo iibsato waxaa jira qodobo ay tahay inaad tixgeliso ama aad ka warhayso ka hor inta aadan doonanin telefoonkaaga cusub qodobada aan rabo inaan muuqaalkan kugu sheego waxay noqon doonaan 10 qodob laakiin 9 ka mid ah aniga ayaa qaadan doona mid ka midana adiga ayaan kuu dayn doonaa oo qodob maskaxdaada ka soo maaxday ayaan jeclaan lahaa inaad nagula wadaagto qaybta hoose ee faalooyinka 9kayga qodob ayaan si horumarsanayaa kaagana qaybta hoose ee faalooyinka ayaan ku sugi doonaa qodobka koobaad dabcan marka aad telefoon iibsanayso qiimaha ayaa ku xadida nooca telefoon aad iibsan lahayd haddii telefoonkaagu ahaan lahaa iPhone midka aad doonayso ama Android sida Samsung, Tecno, LG, Infinix iyo kuwa kale oo badan laakiin haddii aad isleedahay telefoon cusub ayaan iibsanayaa marka ugu horeyso waa inaad go'aansataa qiimaha aad rabto in telefoonkaaga aad ku iibsato taa waxay xadidi kartaa ama ay xadidi doontaa nooca telefoon ee aad doonayso tusaale ahaan haddii aad doonayso inaad telefoonkaaga cusub ka bixiso $300 waxaad qiimaysaa telefoonada $320 ku qiimo ah ilaa iyo $280 waxaan ula jeedaa qiimaha aad rabto in telefoonkaaga aad ku iibsato wax yar ku darso wax yarna ka dhin xuduudda intaa ah telefoon ku qiimo ahna raadi qodobka labaad telefoonadu dabcan sanado ayay kala leeyihiin waxaa jira kuwa sanadkan soo baxay kuwa sanadkii hore soo baxay iyo kuwa sanadihii ka dambeeyay soo baxayba waxaan mar walba kugula talin lahaa inaad iibsato telefoonadii ugu dambeeyay ha ahaadeen kuwa sanadkii hore soo baxay sanadkii kasii horeeyay ama sanadkan dabcan 3 sano ugu dambeysay waa macquul laakiin telefoonadii kasii horeeyay oo kale haddii aad iibsato waxaa laga yaabaa in telefoon ka casrisan oo sanadkan ama kiisii hore soo baxay aad isla qiimaha ku heli karto marka inta aadan degdegin raadi ama ku tasho ama ku fikir inaad iibsato telefoonadii dambe inaad iibsato mid ka mid ah dabcan kuwa raqiis ayaa soo baxa kuwa qaalin waa ay soo baxaan sanad walba kuwa dhexdhexaadna waa ay soo baxaan meesha aad doonto ayaad ka degi kartaa markaa qodobka saddexaad haddii aad tahay qof tusaale ahaan xiiseeya inuu sawiro badan qaado ama muuqaalo badan duubo dabcan waxaad u baahnaan doontaa telefoon kaydkiisa uu weyn yahay waxaan kugula talin lahaa marka sidaa darteed inaad dalbato ama aad doorato telefoon kaydkiisu weyn yahay ka bilowda 64GB tusaale ahaan laakiin haddii aadan jeclayn in sawiro badan aad telefoonkaaga ku qaado ama aadan dantaada markii horeba ahayn iyo inaad muuqaalo badan duubto waxaa laga yaabaa inaadan ku qasbanayn 32GB iyo wixii ka yarba ay ku anfacayaan laakiin 32GB xitaa ma xuma laakiin wixii ka yar iska ilaali qodobka afraad inta badan dadku waxay telefoonada ku dooqdaan tayada kaamirada sidaa darteed telefoonkaad iibsanayso marka ugu horeysaba iska hubi tayada kaamiradiisa waad iska hubin kartaa dabcan adigoon telefoonka gacanta ku dhigin YouTube-ka gal muuqaalo laga sameeyay raadi telefoonka kaamiradiisu sida ay tahay qiimay website-yada ka akhri dad asxaabtaada weydii qof haysta la kaasho wax un samay laakiin kaamirada telefoonka inaad iska hubiso ama aad hubto in telefoonka kaamiradiisu ay wanaagsan tahay telefoon noocaas iibso qodobka shanaad
waxaa jira marka aan telefoon iibsanayno waxyaabo aanan tixgelinin tusaale ahaan cabirka telefoonka oo kale dad ayaa waxay jecel yihiin telefoonno waaweyn laakiin gacantoodu waa ay yar tahay dad waxaa jira gacantoodu ay weyn tahay laakiin telefoonno yaryar xiiseeya marka waxaan kugula talin lahaa in gacantaadii telefoonka aad iibsanayso ay isku dhowaadaan ama ay isla jaan qaadaan haddii aad ogtahay qof gacantiisii telefoonkiisa aanan islahayn aan la kaftanay noogu yeer qaybta hoose ee faalooyinka waxaan isleeyahay marka waxaa jira dad gacmahoodu yaryar yahay laakiin telefoonkoodu weyn yahay dadka waxay u nugul yihiin marka runta la sheego in telefoonka uu ka dhaco uu ka jabo ama jug ka gaarto mis leedahay qodobka waa sax qodobka lixaad waqtigaaga ugu badan ee telefoonkaaga marka aad la qaadanayso waxaad la qaadanaysaa ma ahan korka telefoonka dhabarka telefoonka ma ahan ee shaashada telefoonka ayaad waqtiga ugu badan la qaadanaysaa sidaa darteed telefoonka aad xulanayso ku xulo sidoo kale in shaashadiisu ay tayo leedahay dabcan telefoonada caadiga ah ee sida kuwa Samsung oo kale waxaan kugula talin lahaa in shaashadiisa aad ku xulato inay noqoto Super AMOLED aniga dabcan waan jeclahay shaashada sababtoo ah iftiinkeeda iyo tayadeeda iyo nadiifnaanteeda waa ay fiican tahay sidoo kale waxaad ku doorataa refresh rate-ka haddii refresh rate-ka uu 60 hertz ka yar yahay dabcan shaashada smooth ma ahan markaad adeegsanayso 90 hertz 120 hertz haddii refresh rate-ka uu la eegyahayna aad ay u fiican tahay mar walba oo refresh rate-ka uu bato mar walba oo shaashada tayadeeda iyo marka aad isticmaalayso aad ku raaxaysanayso qodobka 7 isku day inaad xulato telefoon uu ku jiro ama uu ku yimaado operating systemkii ugu dambeeyay ama versionkii ugu dambeeyay tusaale ahaan haddii telefoon Android aad xulanayso isku day inaad xulato telefoon uu ku jiro versionkii ugu dambeeyay oo Android ah tusaale ahaan hadeer version 12 ayaa la marayaa isku day kaasoo kale inaad xulato 11 ma xuma laakiin wixii ka dambeeyay kuula ma talinahay qodobka 8 haddii aad telefoon cusub iibsanayso isku day haddii telefoonka uu yahay uusan ahayn iPhone dabcan iPhone-ka jaajaradiisu waa isku mid waa hal nooc laakiin telefoon Android oo kale haddaad iibsanayso waxaan kugula talin lahaa in jaajarkiisa uu noqdo Type C ama jaajarada waaweyn uu noqdo afweynaha midka loo yaqaano oo kuwii dambe ah jaajaradii hore inaad telefoon ku jaajaraysmaya iibsato waxay keeni kartaa in markii aad meelo kala tagto aad weyso jaajarkii ku haboonaa ee telefoonkaaga uu qaadan lahaa marka telefoonadii ugu dambeeyay intooda badan jaajarkoodu waa Type C marka isku day inaad ka doorato isla qodobka 8 ayaan ku jirnaaye isku day in telefoonka aad xulanayso uu lahaado fast charge haddii fast charge uu leeyahay degdeg ayuu qaadanaya laakiin telefoonadii dambe inta badan fast charge ay wada leeyihiin dabkana si degdeg ay u wada qaataan baterigan iska hubiya cabirkiisu inuu weyn yahay qodobka 9 dabcan waa qodobkii ugu dambeeyay qodobkan waa farsamo yar haddii aad rabto inaad telefoon iibsato telefoonkana aad xogtiisa si fiican u hayso ka hor inta aadan iibsanin waxaad samaysaa raadi qof telefoonka haysta ka qaad tijaabi isku sawir fiiri sawirada tayadooda weydii qofka wata hadduu saaxiibka yahay ama hadduu qof kale yahay wax problem haddii uu ku arkay dadka warayso dabcan telefoonka qof haysta haddii aad taqaanaba isku day inaad u tagto oo aad ka tijaabiso ka hor intaadan adiga kaaga cusub iibsanin inta ayaan ku dhameynayaa laakiin waxaan ku rajeynayaa inaad heli doonto telefoonka ama aad xulan doonto telefoonka kuugu haboon wayga inta qodobadii 9 ahaan ku heshiinay waxaase dhiman qodobkaagii halka ahaa oo aan ku tobnayn lahayn qodobadii 9 ahaa qodobkana qaybta hoose ee faalooyinka inaad nagula wadaagto ayaan rajeynayaa dabcan waan akhrin doonaa faalooyinkiina waan idinkaga mahadcelin doonaa si hor dhacan waan kaaga mahadcelinayaa dabcan anigoo kaaga mahadcelinaa waqtiga qiimiga badan ee ku bixisay daawashada muuqaalkan haddii aadan ka mid ahayn asxaabta IM252 maxaad ka qabtaa inaad nagu soo biirto waan ku soo dhaweyn lahayn dabcan sidoo kale waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iiday oo ugu yaraan aad xulan doonto telefoonka adiga kugu haboon qodobkee adiga kugula haboonaa ama kugu macquulsanaa ama qodobkee ayaad u aragtay inuu yahay qodobka ugu muhiimsan fadlan noogu sheeg qaybta hoose ee faalooyinka inta laga gaarayo muuqaalka xiiba idinkii nabadgelyo
Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sun.